madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb ahaa mas'uuliyiintii ka qayb gashay maanta Jimcaha kulankii lagu duceynayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo lagu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in awoodii shabaab kaliya ay iskugu timi in qaraxyo ay ka geystaan goobaha muhiimka ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in ciidamada xoogga dalka ay kordhiyeen dagaalada ay kula jiraan shabaab una suurada gashay in deegaano sidoo kale degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose shabaab ay kala wareegaan. dilalkii qarxayada xarakada shabaab ay ka geystaan Muqdisho ayuu ku micneeyay madaxweynuhu in ciidamada dawladdu ay fideen oo ay gaareen deegaano shabaab ay kaga sugan yihiin guud ahaan dalka. shacabka ayuu nagu baaqay in si wadajir ay ula shaqeeyaan ciidamada dawladda oo ay gacan ka geystaan dagaalka ay kula jiraan shabaab. cadowga nahaya oo aan dagaalku kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan wuxuu hadda taagan yahay waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan iyo taagan yihiin markii ay u babacdhigi waayeen ciidamadeena geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambeysay ay ka qabsadeen maxaan ku yiraahdaa Barire iyo Mubaarak iyo Owdhegle uma baadhigi karaan laakiin inay qof maskiin ah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo hal doorkeena ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambeysay. waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno inaan dhiiranaan ka qaadno inaan xoojinno la dagaalankooda inaan adkeenno amnigeenna inaan adkeenno wada shaqaynteenna iyo Cabdiraxmaan iyo dadkii dhintay booskoodii inaan buuxino aan ku buuxino geesinimo. dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in isbedel lagu sameeyay magacii garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir wuxuuna ku dhawaaqay in loo bedelay Injineer Yariisow Stadium isagoona sheegay in lagu xusuusan doono gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray 24kii bishii tagtay ee July qarax mas'uuliyiinta al-shabaab ay sheegteen oo ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta dawladda hoose ee Muqdisho. maanta waxaan ugu magac darnay stadiumkan waxaan ugu magac darnay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Cabdiraxmaan Yariisow yaan ugu magac darnay. sacrifice-ku soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo wadankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa. dad badan ayaa aaminsan in dawladdu ay ka gaabisay wax ka qabashada dhinaca amniga iyadoo xuduntii dalka ee Muqdisho ay marti u tahay dilal iyo qaraxyo joogto ah. mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka dhowr jeer ayay ka sheegeen fagaaraha dadka ay iskugu yimaadaan wareysiyo ay bixiyeen iyo shirar jaraa'id oo ay qabteen in amniga muhiimad gaar ah sii doonaan oo wax ay ka qaban doonaan. haddana weli waxaa muuqata qodobo muhiim ah markii aan eegno aysan dawladdu waxba ka qaban maadaama shabaab ay siyaadiyeen dilalkii qaraxyada Muqdisho ay ka geystaan.